bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa sahan academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaan ku gudi jirnaa course aynu ugu magac darnay biology oo markaasi course aynu ku barnayna maadada biology gaar ah fasal form 4 waxaan maraynaa lesson 46 oo markaasi ah casharka 6 iyo 4aad casharkana waxaynu ku baranaynaa waxa la yiraahdo test cross ayaan ku baranaynaa oo markaasi ah tijaabada talaalida ayaa test cross marka la yiraahdo waxa uu yahay examples markaas la xiriira ayaan casharkan 46 aynu ku baranaynaa waxaan filaa 45kii cashar aynu horay u soo daawanay si fiican loo fahmay hadii jira su'aalo ku saabsan 45kaas casharna waad ina soo weydiin kartaa waxaad nagala soo hadli kartaa WhatsApp Telegram ama email admaymeesho ku fudud adiga oo fariintaada cinwaan uga dhigayo qaybta aad rabto su'aal lagu weydiiso sidoo kale waxaan filaa talooyinka ka jeediyay muuqaaladii hore ee markaasi 45ka ahaan in la qaatay ama hadii kadib la qaadan doono taa ku saabsanayd cilmigan waxyaabo badan oo ku saabsan in markaasi la raadin doono ama horay loo raadiyayba aynu gudaha u gal marka course-ku waa biology form 4 lesson 46 waa casharka 46 test cross ayaan markaas kaga hadlaynaa marka hore test cross maxaa la yiraahdaa balan eegno waxa la yiri test cross marka la qeexay involving waxa ku lug leh the breeding waxa way talaalida on organism noole markaas la talaalayo that has kaasoo leh unknown genotype sifo oo qarsoon oo markaas aan la aqoonin ayaa waxa lagu talaalaa with one noole markaasi that is homozygous recessive kaasoo markaasi sifada uu wata ay tahay kuwa markaasi isleh mid yani uu kasbaday recessive ah oo hadana maxay homozygous oo markaasi ah kuwa isle for a desired trait yani waxa way sifada dhalan doonto oo uu gudbin doono si ay u noqoto mid desired ah oo la go'aamin doono ama la go'aamin karo so marka test cross waxa way waa in lagu talaalo noole oo genotype-kiisa aan la ogeyn lagu talaalo noole kale oo genotype-kiisa la ogyahay oo homozygous recessive ah if the parent is genotype hadii waxa waaye genotype-ka waalidka ay leeyihiin is uu yahay homozygous dominant hadii uu yahay all the offspring dhamaan awlaada will have waxa yeelanayaan dominant genotype markaas noqonayaan laakiin if it is heterozygous hadii waxa waaye genotype-ka waalidiinta ay leeyihiin uu noqdo heterozygous uu noqdo the offspring awlaada will show waxay u muuqanayaan وهو ratio the 1:1 phenotypic ratio يعني saamigooda wuxuu noqonaa hal ama boqolkiiba 50 wuxuu noqonaa homozygous boqolkiiba 50 waxa uu noqonaa maxay heterozygous iyo markaas noqonaa performance test cross marka test cross qabashada ama hawsha tijaabada isku talaalida wuxuu yiri markaas suppose waxaad ka soo qaadaa breeder qof yani breeder ah oo wax isku talaalayo ayaa wantis wuxuu rabaa to produce inuu soo saaro hybrid white grapefruits geed markaasi waxa ah maxay canab ah oo yani waxa waaye isaga oo yani waxa way la sameeyay hybrid ah oo hadana white ah in grapefruit trees ayuu ka soo saara white color marka la joogo white color ama mid cadaanka wuxuu noqonaa dominant iyo noqonaa dominant trait iyo markaas noqonaa halka red kan uu noqonayo recessive uu noqonayo mid yani la soo gudbiyay therefore sidaas daraadeed red grapefruit trees geedaha canabka ee redka ah in the orchard kuwa markaasi dhashay must be waxay noqonayaan waxa khasab ah homozygous recessive ee noqonayaan oo waxay noqonayaan labadoodaba يعني white or يعني هو small ay noqonayaan ama laba w oo small ay noqonayaan the genotype marka of the hybrid white grapefruit ka geedka yani mirta grape canabka cadaanka ah obtained by uu helayo breeder can be wuxuu noqonaa homozygous dominant uu noqonaa waxa laba isleh oo maxay ah wax loo yaqaano labadaba capital ay yihiin or mise heterozygous uu noqonaa oo maxay dominant ah marka wuxuu noqonaa maxay mid capital midna small yani mid waa capital midna waa small waa hetero way kala duwan yihiin oo white color si with white ah loo helo therefore sidaas daraadeed breederka ama qofka talaalaha ah has to perform waa inuu qabtaa test cross tijaabo talaalid waa inuu qabtaa
to determine si uu u soco the genotype sifada qarsoon of the white grapefruit tree uu leeyahay waxaan filayaa markaan casharkan wax badan laga fahmay markana waa exercise layli ama weydiimo su'aasha koowaad waxa la yidhi divine waxaad qeexdaa test cross maxaa la yidhahdaa su'aasha labaad waxa la yidhi what is done maxaa dhacay if the parent's genotype is homozygous haddii waalidiinta genotype-kooda uu yahay homozygous hadduu yahay maxaa dhacayo su'aasha kale saddexaad oo ah su'aasha ugu dambeysay casharkan waxa la yidhi a breeder qof talaalo ah oo wax isku talaalayo ayaa wantis wuxuu rabaa to produce inuu soo saaro hybrid white grapefruit ayuu rabaa inuu soo saaro what he wants muxuu u baahan yahay waxaan filayaa markaan casharkan si fiican loo fahmay intayna kusoo gabagabaynayna casharkeena intaynu ku kulmi doonaa casharka xigana waxaan idinkaga tegaynaa sida nabadino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh